የብልጽግና ፓርቲ ምክር ቤት ስብሰባ እንደ ዋና አጀንዳ የተወያየ ነው። sida la ogsoon yahay shirka joogtada ee golaha tala bixinta xisbiga barwaaqo oo socday muddo 3 maalmood ah oo la soo dhaafay ayaa si guul ah u soo gabagabowday. Shirkani waxaa looga wada xaajoonayay arrimaha qaranka iyo kuwa xisbiga la xidhiidha, isla markaana waxaa la dejiyay jihada muhiimka ah ee dalka uu u baahan yahay. Wada xaajoodkan waxaa ka soo baxay oo kale qaadista tallaabooyin lagu xoojinayo doorashada qaranka ee soo socota sidii ay ugu qabsoomi lahayd si nabad ah oo xor ah oo cadaalad ku saleysan, iyadoo la ogsoon yahay in nidaamkani uu xoojinayo kalsoonida shacabka. Waxaa la dhisay aasaaska dimuqraadiyadda iyadoo la ilaalinayo xasiloonida iyo amniga dalka. Dowlad deegaanka Soomaalida ahaan wada xaajoodka noocan oo kale ah waxa uu noo leeyahay muhiimad gaar ah. Deegaanku waxa uu sii wadi doonaa ka shaqaynta nabadgelyada, iskaashiga iyo horumarka qaranka, iyadoo lagu dadaalayo in si dhow loogu shaqeeyo shacabka loona ilaaliyo nabadgelyada fursadaha jira, isla markaana la sii wado horumarka waara iyo danaha qaranka.